Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Iyadoo marba marka ka dambaysa ay soo badanayaan digniinaha laga bixinayo isticmaalka badan ee sonkorta, isla markaana xeeldheerayaasha caafimaadku ay sheegayaan in isticmaalka badan ee sonkortu ay khatar ku tahay caafimaadka qofka bini'aadanka, ayaa haddana waxa adkaatay in qaabka ay dhakhaatiirtu ku talinayaan la isaga ilaaliyo sonkorta, maadaama sonkortu ay ku jirto inta badan cunitaanada iyo cabitaanada aynu sida joogtada u isticmaalno. Haddaba daraasado dhinaca caafimaadka ah oo dhowaan la sameeyay waxay sheegeen in muddo bil ah oo qofku gebi ahaanba iska daaya sonkorta, isla markaana faraha ka qaado dhammaan cabitaanada iyo cunitaanada sonkortu ay ku jirto, in qofku muddada bisha ah ee sonkortu ay jidhkiisa ka maqan tahay uu ka helayo 7 arrimood oo u fiican caafimaadka jidhkiisa, kuwaas oo kala ah miisaanka saayidka ah ee jidhka oo xaddi badan hoos u dhaca muddada bisha ah ee sonkortu ay ka maqan tahay jidhka qofka, iyo arrinta labaad oo ah in muddada bisha ah ee sonkortu ay ka maqan tahay qofka jidhkiisa in gebi ahaanba jidhka noocyadiisa kala duwani ay si habsami u shaqeeyaan, isla markaana jidhku uu jaanis u helayo inuu gubo oo burburiyo sonkortii hore ee ku jirtay jidhka ee jidhku aanu u baahnayn. Waxaa kaloo arrinta saddexaad oo khabarada caafimaadku ay sheegeen in muddada bisha ah ee sonkortu ay ka maqan tahay jidhka qofka uu qofku helayo hurdo raaxo leh. Waxa iyana arrinta afraad ah in muddada bisha ah ee sonkortu ay ka maqan tahay jidhka qofka uu wanaagsanaanayo diirka sare ama maqaarka sare ee jidhka, iyo arrinta shanaad oo ah in muddada bisha ah ee gebi ahaanba sonkortu ay ka maqan tahay jidhka qofka uu jidhku helayo difaac uu iskaga difaaco xanuunka macaanka ama sonkorowga, gaar ahaan nooca labaad. Waxa kaloo iyana arrinta lixaad ah in muddada bisha ah ee sonkortu ay ka maqan tahay jidhka qofka 35% qofku uu ka badbaadayo xanuunada ku dhaca wadnaha, iyo arrinta toddobaad oo ah inuu yaraanayo ama ilaa xad hoos u dhacayo suuska gala ilkaha, iyadoo hay'adda caafimaadka adduunka ee magaceeda loo soo gaabiyo WHO ay dhowaan sheegtay in isticmaalka badan ee sonkortu uu waxyeello weyn u geysto ilkaha.